hawlay inaan wax weyn ka bedelo hab fikirka iyo adduun aragga xuduudda ku noqday inaan wax noqono oo aan meel gaadhno dhalinyaro ahaan. waxa ku sheegaya caawa inaad isbedeshay waxay u baahan tahay a lot of things waxyaabo tira beel ay u baahan tahay inaad ka baqdo inaad dadku ku dhaliilaan oo tiraahdo niyo cabdi markaan wax qabto saaxiibsaan buu dhaha niyo cabdi iga xun cabdi sideen u qanciya cabdi sideen naftayda ugu qanciya cabdi siduu waxaan qabanaya uga raali noqdaa gabadhan caashiya aamine iyo xalwe iyo muumina siday igu farxaanay igu dulwadayaan hebel soco waxaan doonayaa everyone in life qof kastoo nolosha joogaayay waxaan doonayaa inuu ii raxleeyo ii boodbooda that's not the aim maaha ujeeddadu taa aduu jeedadaadu nooshay waxa weeyaan xaqiijinta weynayntaada xaqiijinta iyo ka dhabsheega iyo helidda waxa halkan kuugu jira inaad gaadho ididilooyinka iyo rajooyinka iyo himilooyinka maskaxdaada ka dhex guuceeya heliddeeda ayaa ujeeddada ugu weynaad adugu nooshay soo maa marka haddii aanad ka korin isku qiimaynta indhaha dadka oo aad mar walba iska soo dhex daawato naftaydiiyo tana aan ka soo dhex daawado naftii cabdi oo cabdi siduu i arka aan idhaahdo definitely waxaan sheegay aasaas iyo sees noloshaydu ay ku tisqaadi lahayd baan sheegay ha ka dhex daawado naftaada indhaha dadka kale dadku waxay ku idhaahaani definitely maaha wax runa inta badan criticismkiiyo dhaliisha xagga dadka kaaga imanaysa qiimee oo adigu kala dooro oo kala shandheeyo kala miir qaarku anfacayaa jira waxaad qiimaysaa oo tixgelinii mudnaan siisaa dhaliisha kugu timiday adigu halkay kaaga timid qofkanay kaaga timiday backgroundkiisa iyo cv-giisa sidaa u yar eeg oo waxaad tidhaahdaa hebel horta dadaaladii iyo halganadii nolosha kaga jira ma ku guulaystay ha wallahi wuu ku guulaystay hebel imse himiluu lahaaba u xaqiiqsamay intuu lahaaba u xaqiiqsaday wuxuu ku nool yahay noloshuu ku riyoon jiray markuu yara markaa ninkaas tixgelin buu mudan wuxuu mudan yahay in aan ka dhegaysto wuxuu leeyahay waayo isagu wuxuu gaadhay meeshuu rabay meeshan aan doonayo inaan gaadhuu gaadhay isagu therefore criticismkiisa positive aan ka dhiganay nacam dhaliishuu keenay waxaan leeyahay